بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي waxaan rabaa inaan ka hadlo. Waxaan u jeedaa halkan oo shalay baraha bulshada ku arkay sawirkan aadka u qurux badan ee laga soo qaaday dalkii hooyo, gaar ahaan magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Waxaa maskaxdayda ku soo dhacday magaalada saa u quruxda badan, dadka ku hardamaya ama dadka ku dagaalaya iyo dadka u dhashay iyo dadka sida ay yihiin markaan rogrogay wax badan ayaa ii soo baxay. Magaalada qurux badan sawirkeeda inaan ku faano baraha bulshada soo dhigno Soomaaliya waa halkan, Soomaaliya halkan is easy, waa wax aad u sahlan. laakiin in la difaaco ama saa ay u qurux badnaato ma ahan qori kaliya inaa ku difaacdo, qalinka inaa ku difaacdo, afkaaga inaa ku difaacdo, sharaftaada inaa ku difaacdo. Dad badan ayaa diidan. Magaalada Muqdisho waxaa ku hardamayaan dad aad u tiro badan oo kala duwan, oo shisheeye iyo sokeeyaba leh, oo cid walbaba leh. Sokeeyaha maxaan ula jeedaa marka waxa weeye waa Soomaalida, shisheeyuhuna waa shisheeye. Soomaalida qof waliba, qolo waliba si ayay daaqad iyadu ay furatay oo shaydaanku uga qaqaayiray ayay Soomaaliya ka daawatay, ama magaalada Muqdisho ay ka daawatay, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. Qolo waxay tiri halkan waxaa sheegta dad ayaa sheegta, dadka halkaa sheegta sidaysan u sheeganin ama aysan ugu nacfin ama aysan u ahaanin dad reerba oo yaa kula adugu qaado. Waa in aan wax walba waxaan u adeegsan karo waa inaan u adeegsadaa wax kasta oo xumaana, kan qalinku qori karo, kan afkayga ka dhihi karo, kan shisheeye, wax walba waxaan u adeegsan karo waa inaan u adeegsadaa. Qolo tiri dhooshana waa inaan ka qoslaa. qolo kale waxay tiri qoladii meesha maxay ahayd waxaan adiga ka halaabin aniga igama halaabayn, kii dhintana waa dhimanayo, waa la arkayaa, I don't care aa layiri. maxaa iga galay? Magaaladan waxaa ku hardama 5 qolo ayaa ku hardanta. Qolo waxaa la yiraahdaa gacan ku dhiiglayaal, qolona waxaa la yiraahdaa jeeb ku dhiiglayaal, qolona waxaa la yiraahdaa qalin ku dhiiglayaal, qolona waxaa la yiraahdaa af ku dhiiglayaal, qolona waa qolada maxay ahayd iyaguna qarash maxay ahayd baalki isha koreeto oo qalin iyo wax iyo everything wax kasta ay ku dhiiglayaal yihiin. Qolada gacan ku dhiiglayaashu waxa walba dila waa shabaab oo dadka laaya oo dadka dila. Gacan ku dhiiglayaasha waa ayaga. Jeeb ku dhiiglayaashu waa ganacsatada maalka iyo naftaba ag dhigay, ayaga naftooda difaacday, maalkana waa kuwa ku siiya, waa ganacsatada, waa jeeb ku dhiiglayaasha. Gacan ku dhiiglayaashuna waa shabaabka. Af ku dhiiglayaashu waa kuwa baraha bulshada ku jira ee afka iyo wax walba ku difaaca oo ama maxay ahaatay ku difaaca. Af ku dhiiglaya gacan ku dhiigle waa siyaasiga aan ogolayn qalinkiisa baarlamaanka kuula fariistay ama wasiir iskaga kaa dhigay ama xildhibaan iskaga kaa dhigay, ee afkiisana ku difaacaya, qalinkiisana ku difaacaya, hoostana kala shaqaynayo, ee marnaba aan ogolayn magaalada. isagu hotel uu jiifa, hotelka uu jiifa waardiyo leeyahay, lacag ayuu qaataa, gunno ayuu qaataa, fasax ayuu leeyahay, shaatigiisa u cad. maalintii baarlamaanku shiraayo waa shiraayaan. haddii qodobo lasoo tuuro xitaa waxaa laga yaabaa maanta dhan isagoo qayilaaya ama xaladhan waxaa la maxay ahaatay aakhriya adduuma wuxuu kala ogaay aan la arkinin insaaka baarlamaanka la iskaga yeero. calaayi xaal Soomaaliya waxa weeye maxay ahaatay si walba oo loo xasdo oo Soomaaliya loo baabi'iyo. kuwa aniga igu sinjiga ah, kuwa aniga igu maxay ahaatay sinjiga waa sinjiga Soomaali, sinji qabiil aniga oo gooniya oon ka hadlaya ma jirto. waxa weeye kuwa meel walba naga dilay waa kuwa gacan ku dhiiglayaasha, jeeb ku dhiiglayaasha, qalin ku dhiiglayaasha, af ku dhiiglayaasha. waa kuwa shisheeyaha soo kaxeeyay, ee howdka baadiyaha geeyay, ee gabdhaha Soomaalida siiyey, ee wax yaa u fududeeyay, yaa dhibkan keenay. Soomaali iyaga ayaa isku keenay, iyaga ayaa kala dulaala shabaabka, ayaga ayaa hoosta ku wada haysta. nin walba reeruu ka dhashay, kan la xiro yaa soo daaya, in adeerkiisoo xildhibaanaha soo daaya, kan dhibaatada geysta yaa soo daaya, in adeerkiisoo wasiiraha ka daba taga. oday
shalayto kursiga ku keenaa kaaga daba yimaado kaa daba taga. Dhibka iyo dhibaatada waxa dadka ku haya oo shabaabka ka daran waa gacan ku dhiiglayaasha oo gacan ku dhiiglayaasha oo qalin ku dhiiglayaasha oo af ku dhiiglayaasha oo jeeb ku dhiiglayaasha. waa intaas inta ka daran dhibka shabaab oo dadka dhameeyo dadka halaageen oo dhibaatada dadka u geysteen. waa raggaas ayoon Soomaaliya laga qabana Soomaaliya nabad ma noqonayso. quruxda bilic in la magaalo in la soo sawiraho oo la keenaa waa wax iska easy, waa wax iska caadi, laakiin dhibaatadu xagee ka timid waaye yaa horseeday. dalkeena nabad Allah nooga dhigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.